إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته وحالي عباركودي كو غيريودي مغالده غبيلي oday abiib warsame cabdi oo ku magac dheer abiib guray la markaana maamuus iyo magacba ku lahaa geeyiga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiley qayb weyn ka qaatay nabadeyntii iyo dib u soo celintii dawladnimada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. marxuumkan ayaa aas qaran loogu sameeyay cabaaraha sare ee magaalada Gabiley. aaskan qaran ee loo sameeyay marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, salaadiin, cuqaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxayna ka tacsiyadeen ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaanba qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka baxay marxuumku. waxaana hadaladoodii mid ahaa kullu nafsin daa'iqatul mawt waynu wada taaganahay. halkan waxa ka sida tacsiidii madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo taasoo diray dhammaan ehelkii iyo qaraabadii marxuumku ka geeriyooday. sida la sheegayna marxuumku kaalin weyn ku lahaa gobolka qiimo ku lahaa, laakiin waa usnada nolosha qof walba oo wuxuu taagan. innagana waxa leenuga baahan yahay bukaan aynu ku cibro qaadano. isagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariisto, qabriga u nuuro oo su'aasha u sahlo. ilaahay naxariisto baan abiib guray inaan rajayn maanta wuxuu ahaa odayaasha haldoorka ah oo runtii lagu yaqaano nabadeynta iyo waxgaradnimada. runtii ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa inuu jannadii firdawsa ku waraabiyo. ilaa ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. maanta runtii waa maalin murugadeeda leh oo aynu u joogno aaska odaygeenii weynaa oday abiib warsame cabdi abiib guray oo runtii ahaa madaxda dhaqanka ee gobolka, odayaasha ugu miisaanka culus leh. guud ahaan ehelkii iyo qaraabadii iyo dadweynaha gobolka Gabiley iyo dadweynaha reer Soomaaliland, khaasatan madaxda dhaqanka, dhammaantood waxaan leenahay ilaahay sabir iyo iimaan jamiil ah naga siiyo, isagana ilaahay qabriga ha u nuuro. abiib oo runtii ahaa oday halyeeya codkara geeri baan laga cidaynaynin. waxaanu leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo qaranka Soomaaliland ilaahay samir yaman hay naga siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. allahu naxariisto abiib warsame cabdi. waxaan halkan tacsiin uga dirayaa marka koowaad guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada ku nool, gaar ahaan gobolka Gabiley, gaar ahaan ehelkii iyo qoyskii uu ka baxay oday abiib warsame. samir yaman allah ka siiyaa leeyahay. waan hubnaayo abiib wuxuu ahaa qof lagu majiirto wanaagga lagu majiirto. odayada samanku way macno badan yihiin. oday asala oo wanaag ku asala oo aan dhib lahayn oo dur lahayn ayuu ahaa. bismillaahi rahmaani rahiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ay saaxiibkeen allah u naxariisto. ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo. ilaahay martii la jecel yahay ka dhig. in walba uu dhimanaya marka maalinta asbaa loo aasay ayaa dee adduunyada wax kaga tegay moogta. wuxuu tegey halkii aan laga soo noqonayn buu tegey saaxiibkeen. nin run sheega wuxuu ahaa niman meeshuu fadhiya lagu xaban dadka iyuu ahaa moogta. ilaahay ha u naxariisto, allah ha u naxariisto. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. abiib warsame geeridii sidaan maanta joognaa aaskiisii ayaan maanta joognaa. abiib waa xalay go'ay. abiib wuxuu ahaa abiib warsame caqliinta ugu waaweyn gobolkan Gabiley buu ahaa. nin rusheegu ah oo hadalka runtaa ku haga. runtuna waa laga maarmaan baa layidhi. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. ilaahay naxariistii jannaha siiyo. waxaan maanta joognaa aaskii odaygeenii weynaa abiib warsame cabdi abiib guray. ilaahay naxariistii jannaha siiyo oo murtudafle habeenkii xalay ahaa ku geeriyooday. run ahaantii sidaa wasiirka iyo odayaashii uga horreeyey baa ay ka hadleen. wuxuu ahaa abiib warsame marka la yidhaahdo arrin odayaynaad qofka koowaad ee aanu annagu gobol ahaan dadkii nala shaqaynaya aanu soo qabanaynay buu ahaa. waa Cabdisalaan Maxamed Bade, Bulsha TV, Gabiley.